بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وإنا إليه راجعون runtii tacsi wax badan aan dirnay maalin walba tacsi aan diraynay tacsidu waxay u akaatay hadda xaflado la dhigayo kaleeto waa ka xunnahay wixii maanta dhacay 28kii bishii la soo dhaafay sanadkii la soo dhaafay dhacay oo maalin walbana dhacaya in la waayo qof mas'uuliyadeeda qaadata madaxweynihii qaranka nasiib darro saddexdii sano la soo dhaafay hal maalin amniga dadkii loo dhiibtay oo uu kala xisaabtamay ama loo soo istaajiyey inaan jirin horta aadaan uga xunnahay waxa kaloo iyadana nasiib darro ah in dadkii Soomaaliyeed la go'doomiyey oo aan ognahay banaadir saybiyaana qofka ka baxa oo aan qaybtan dib ugu soo laaban karin anigoo xildhibaan haddaan iridaas ka baxan dib ugu soo laaban karin xaafadda hodan isgooska hodan haddii aan tago aan dib ugu soo laaban karin oo anoo xildhibaan haddaan ka baxo dib ugu soo laaban karin oo la ii diiday qofka xagga joogaana xagga uu joogayo kan dhinac aan joogan dhinac uu joogayo oo jidki macnihii si kasta loo kala xirxiray meel walba ay xiran tahay welina qarax uu ka dhacayo sayidkii baarlamaankii shaqaalihii baarlamaanka iyo askartii baarlamaanka waardiyeynaysa maanta ay ku geeriyoodeen maalinta waqti ka sii horeysay ee hotel SYL oo albaabka madaxtooyada ku yaala si toosa loo soo weeraray ayadoo intaas ay jirto nasiib darrada kale waalid ah wax ay kamid tahay hadana in xukuumadda ay ku dhawaaqday guddi la leeyahay 61 qof gaaraya ama aqal nambarkooda oo la leeyahay 1 July ayay dabaaldegiisii ayaa guddi loo saaray waxaa nagu soo dhacay New York aan joognaa London maan joognaa xafladaha noocan ah oo la leeyahay 6 bilood ka hor la dhigaya loo dabaaldegaya halka ay madaxtooyada irideed qarax uu ka dhacay maashi ay ahayd in amniga guddi loo saaro in dadkii amniga loo wakiishay lagula xisaabtamo baarlamaankii haddii ay muddo kasta ay u waceen dadkii amniga shaqada u hayay su'aal kasta la weydiiyay su'aalihii waxay ku soo dhameeyeen inay inkiraad iyo dafiraad iyo jawaabta ay ka dhigaan marka dalkan madaxweyne farmaajo intuu u wadaa waa isweydiinaynaa dawladdii hadda xukuumaddii waxay leedahay one man one vote ayaa dhacaya doorasho noocaas la qabanaya safay dadku soo galayaan oo dadkaana wax dooranaya dadka wax dooranaya ma dad malaa'iga kala soo diraysaa micirkay ka soo dhacayaan intay ka imaanayaan waa yaabanahay waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha inuu tallaabo qaado waqtigu waa ku dhammaaday 4 sano ayaa ku dhammaanaysa asagoon biitoonina bedelin qofna kula xisaabtamin dhibaatooyinkan dhacaya waxaan codsanaynaa madaxweyne taariikhda ha ka tagto legacy ka tag dalkan ma sii joogi kartid qof sii joogayna malaha qof walba inta uu jooga ayaa lagu xusi doonaa ayaana lagu xusaa madaxweyne wax ka bedel ajandahan wax ka bedel ma ahan wax la qaadan karo maalin walba inaan tacsiyeyno tacsidii aan ku soo laabano tacsidu xaflad ma aha waxay isku bedeshay hadal dadka macnihi dadka lagu tarax tagayo qofkii dhintay maalin walba hadaan aan waa ka xunnahay waxbana aan ka qabanayn inaan ku faraxsanahay bay u akaanaysaa mana habboona waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha inuu tallaabo qaado isbedel amni keeno waa muhiim aad baanan ugu sheegaynaa ugu celcelinaynaa madaxweyne waa naga codsi dadka Soomaaliyeed way ku eeganayaan way ku fiirinayaan adaa lagula xisaabtamaya adiga ayay dadku ku soo doorteen qofka la magacaabay maaha adaa lagula xisaabtamaya madaxweyne waa in aad amniga dalka wax ka bedeshaa haddii aan waxba laga bedelayn ugu yaraan dadkii la go'doomiyey ganacsigii la go'doomiyey oo kala xiran waa in la iska furaa ganacsigiina waa xiran yahay dagaalkiina waa socdaa oo nimankan qolalkay noogu soo galayaan habeen iyo maalin dekadii canshuur ka qaadayaan ayagoo canshuurta ka qaadaya naga qaadaya dadweynaha ka qaadanaya haddana qolalka ugu soo galayaan isma keeni karto waa inay xukuumadda caddaysaa wabillahi tawfiiq